رمضان كريم برنامج كعافيماتك وعيقلينتا بشهر رمضان كالكال هوسبيتال كلا صعب وحكوغو حنونada dilaaca bisha Ramadan sida gastri xanuunada sakarowga calool fadhiga iyo kuwa kale oo badan kala soc maalin kasta baraha bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin allahumma salli ala nabiyyina muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam Ramadan mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waxaan rabnaa inaan ka hadalno nuujinta dabiiciga ah iyo bisha barakaysan ee Ramadaan sidee la isku waafajinaa culimada islaamka mar hore ka hadleen hooyada nuujinaysa ilmaha inay ayada ay xaaladda qiimeyso ayada qiimey karta inay isku wada karto soonka iyo naas nuujinta cunuga hooyooyin badan isku wada laakiin hadii lala taliyo oo markaas talooyinka aan soo wadna ay insha Allah ka faa'iideystaan hooyooyin badanna duruufo ayaga haysta awgood way iska dhaafaan soonka ilmaha nuujiyaan laakiin marnaba lama rabo in cashaan waa sooma darteed ilmaha yarka naaska looga jaro may ilmaha naaska waa inuu nuugaa haday hooyada ay kartidaas ayada iyo caafimaadkaas Ilaahay u siiyay isku wada karto inay isku wado hadaysan isku wada karin hadii wax la dhaafayo waa ramadaanka waa la soo gudi karaa Ilaahay wuu naxariis badan yahay tafaasiisha intaas ka badan dheeraadkaana culimada islaamka la weydiinaa hadii Ilaahay idmo ayaga wax intaas ka dheeraad idin iftoonaay marka waxaan rabaa nasiixooyinka soo socda inaan u sheego hooyooyinka ilmaha nuujinaya naaska nuujintiisa marna lama joojiyo ilmaha haduu u baahan yahay waliba marka uu ka yar yahay 6 bilood oo hore ee cumrigiisa marna inaad joojisid ma aha see marka uu nuujinay adoo sooman cunuga wala nuuji karaa hadaad caafimaad qabto marka see loo nuujinaa waa inaan isla ogaano koow marka ugu horeysa waxay u baahan tahay hooyada si ay maanta cunugeeda u nuujiso inay tahay inay biyo badan qaadato biyaha badan goormay qaadanay waxaad qaadanaysaa habeenka marka afurto ilaa iyo suxuurta inta ka dhaxaysa markastoo aad waqti u heshidba inaad biyo cabtid taas waxay keenay in jirkaaga biyo badan qaato oo markaas aad hadhowdii caanihi ay sameysmaan biyaha kaliya waxba ma ku taraayaan kaligood biyaha ma istaagaan jirka waxaad u baahan tahay inaad qaadatid waxyaabo kale oo biyaha ku celiya sida qaraha iyo fawaakahooyinka aan cuno dhan bambeelmada qaraha caanaha muxuu ahaa sisinta la shiido way fiican tahay waxaan ku dhahay waxyaabo sharaab oo badan oo kala duwan ina biyo caadi kaliya cabtid ma aha daruuri laakiin biyaha badan oo u baahan tahay marka qaraha iyo fawaakida ku dhax qas laana waxay leeyihiin ayaga minerals ku celinaya biyaha si biyaha jirkaaga ay ugu jiraan maanta markaad ilmaha nuujinaysid oo aadan oonka uusan kuugu badanin waxa kale oo u baahan tahay inaad si xigmadaysan aad wax u cuntid مثلا biyaha aan u noqono intaan ka soo gudbin biyaha si biyo badan aad u qaatay inaad subaxii markaad suxuurinayso aad jeeg biyo cabtid wax faa'iido ma ku keenayso 5 saac oo ugu horeysa ama subax inta ugu horeysa fiican aad u fuuq baxaysaa biyaha dhan aad iska dhameynay kaaga dhamaanaan xagga kaadida laakiin biyaha waxa u baahan tahay inaad u cabtid kiskis qaar dumar aad cabtid oo khudaartaas iyo faakooyinkaas aan ku sheegayna aad ku qaadatid si biyaha ay kuugu celiyaan si tartiib biyaha inaad u cabtid hal mar isku aruuri ma ku waxba faa'iido ama laha cuntada nafs shay waaye hal mar inaad caloosha buuxisid wax faa'iido ma marka afurtid si sax ah u afur qofka Jonathan maanta dhan cunug nuujinaya oo soomanay marka waxa u baahan tahay inaad qaadatid cunto yar oo khafiif marka hore timir iyo faakaha qara mesela inaad isku cuntid hadhow marka cashada la gaarina hadana wax yar oo kale aad cuntid hadana intaadan seexan ka hor wax yar oo kale aad cuntid hadhow markaad in between hadaa soo kacdid hadana aad wax yar oo kale cunto qaadatid suxuurta hadana wax yar oo kale inaad qaadatid almuhiim inaadan gaajoon dheregta inaad iska badis wax faa'iido ma leh laano hal mar cuntada ka badanaysa waa calooshay waxa laga yaabaa inay ku keento hadhow calool xanuun iyo caloosho oo si sax ah cuntada u shiidaysa marka kiskis inaad u qaadatid waxaan kala balamayaa oo kale inaadan biyaha iyo cuntada hal mar isla qaadanin taas dhibaatay keentaa cuntada waxa u baahan tahay inaad kaligeed qaadatid cabaar joogtid hadana biyaha kaligood mar kale aad cabtid hadaad hal mar isku cabtid cuntada iyo biyaha waa waxyaabaha keena dheefshiidkaaga inuu si sax ah u shaqeeyo waay laana jirkeena wuxuu soo daayaa marka aan cuntada cunayno afka sida dhareer uu soo daayo kale ay qanjirada caloosh ku jiro dhan dhareer ay soo daayaan dhareerkaas oo macnihiisu u yahay biyo badan oo loogu talagalay enzyme wata oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diyaariyay inay cuntada isku qasaan si cuntada shiidideeda ay u fududaato
marka laakiin haddaad biyo caadiya waraabto adoo cuntadiina ay kugu jirto cuntadaasaa biyihii isku daya inay shiidaan sida saxdaan cuntada uma shiidmayso laana biyahan aad cabaysaa ma wataan insaamyada jirkaaga uu soo dayn lahaa saas darteed biyaha iyo cuntada hal mar in la isku cuno waa waxyaabaha baruurta keenay ka mid tahay iska taasna inay ka foojignaadaan aan rabaa hooyooyinka maalintii oo dhan cunuga markaa nuujinaysid nuujinta aad subaxa hore waxaa laga yaabaa inay caanahaadu caadi yihiin oo ilmaha uu weli caano fiican helayo laakiin duhurada iyo waxa ka dambeeya inuu ilmaha caano fiican meesha ka waayo oo markaas aad aragto ilmihii xanaaqaaya oo ooyaaya oo naaska markaa u dhiibtid xanaaq ka hor keenaya markuu caano ka waayo taas maxaan ku samayn karnaa taas waxaad ku samaynaysaa in aad sida horta cuntada iyo biyahaasaan kuugu sheegaya aa usoo nidaamisid kadibna marka waqtiyadaas la gaaro oo aad dareento inuu jirkaaga kululaanayo oo adigaba aad ooman tahay markaas waxaad samayn kartaa waxaad leedahay khiyaaraad badanaad haysataa inaad baxdo ood soo qubaysato biyo isku soo shubto qabow adoo dhan soo qubaysato markaas adoo qabow aad cunuga nuujiso wuu qaboobaa jirkaaga mid kale aad samayn kartaa in aad biyo diiran aad gelisid mara nadiif ah oo maradaas aad naasaha saartid korkooda si ay diirnaantaas waxay keeneen in uu naaska relax noqdo oo markaas ay caano ay ku soo dhacaan